kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalimnimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegantahay 30kii bishii 7aad 2021 wararkeena maanta ee Boundless Media aan idinku haynana waxa kamid ah dalka Kenya badowga habeenkii oo la kordhiyay iyadoo la mamnuucay isu imaatanka dadweynaha dalal Carabeed oo ka dambeeyay xiisadda siyaasadeed ee Tunisia magaalada Kismaayana afar ciyaaryahan oo qarax miinaha u geeriyootay daawadayaal ku soo dhawaada khudbadaas oo faahfaahsan ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay dhowr kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen koox ciyaartooy ah oo qarax ku haleelay magaalada Kismaayo ciyaartooyda ayaa la sheegay inay ku sii socdeen garoonka kubadda cagta Stadium Mahama ee magaalada Kismaayo xilligii uu qarax haleelay ciyaartooyda ayaa garoonkaasi kaga qayb gali lahaa ciyaarta kooxaha heerka koowaad oo maanta uu doonayay inuu daafro madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland khasaare dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa kaasi oo dadkii ka agdhawaay sheegeen inuu ka dhashay walxaa qarxa oo gaariga lagu xiray afar ka tirsan ciyaartooyda ayaa la xaqiijiyay inay qaraxa ku dhinteen iyadoo uu dhaawac soo gaaray kuwii kale kuwaasi oo haatan lagu dabiibay isbitaalka magaalada Kismaayo wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in badowgii habeenkii uu sidiisa sii ahaanayo taasi oo micnaheedu tahay in uu bilaabanayo 10 fiidnimo ilaa 4 aroornimo amarkan ayaa sidoo kale ka sii jirayo 13 ka mid ah dawlad-deegaanada wadankaasi oo ku yaalo gobolada Nyeza iyo galbeedka dalka oo bandowga ismaamuladani bilaabanayo 7 fiidnimo ilaa 4 aroornimo waxaa meesha laga saaray dhammaan isu imaatanka dadweynaha ilaa iyo muddo 30 cisho ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Matihi Kagiwa ayaa sheegay in ismaamulada ay ka mid yihiin Kiambu, Kajiado, Lamu, Nairobi, Murang'a iyo Tana River la qiimeynayo xaaladaha cudurka kadib markii kiisaska maalinlaha ah ee dawlad-deegaanadaasi kordheen waxa uu intaa ku daray in uu isu soo baxa siyaasadeed ay sababeen in kiisaska ismaamuladani ay kordhaan goobaha cibaadada ayaa sii furnaanayo iyada oo lagu boorinayo dhammaan dhinacyada ay khusayso inay hubiyaan u hoggaansanaanta tilmaamaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya dhanka kale mulkiilayaasha ayaa laga codsaday inay u ogolaadaan shaqaalahooda inay ka soo shaqeeyaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada daruuriga ah ee muhiimka ah qofkii dhintay waa in lagu aasaa muddo 72 saacadood gudahood ah Master Mutihi ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay qaban doonto shir looga hadlayo sida ugu wanaagsan ee lagu hubin karo in 50 qof oo kamid ah qoyska qofka geeriyada ay ka qayb galaan aaska dhanka kale abaamdulaha booliska dalka Kenya Hilary Mutyambia ayaa sheegay in lamaha ammaanka ay dhaqan gelin doonaan dhammaan amarada loo soo jeediyo garsoorka dalka Tunisia ayaa furay baaritaan la xiriira eedeymo sheegay in xisbiyada siyaasadeed ay maalgelin shisheeye heleen ka hor doorashooyinkii qaran ee la qabtay 2019 sida uu xafiiska dacwad ogaha dalka Arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee AFP saddexda xisbi ee baaritaanka ku socda ayaa waxa ay kala yihiin xisbiga Islaamiga ah ee Inhada oo ah xisbiga ugu weyn ee qalab Tunisia iyo dhaqdhaqaaqyada Achi Tunisia go'aankan ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu kala diray baarlamaanka xilkina ka eeriyay ra'iisul dalkaasi tilaabadaasi oo xisbiga Inhada oo ku tilmaamay inqilaab waaxda dhaqaalaha ee garsoorka ayaa furtay baaritaan 14 kaasi oo diradda lagu saarayo maalgelin shisheeye iyo aqbalida lacago aan la garanaynin halka ay ka yimaadeen inta uu socday ololihii doorashada ee 2019 sida uu sheegay Muhsin Dali oo ah afhayeenka xafiiska dacwad ogaha doorashooyinka baarlamaaniga ayaa dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi waxaana ku xigay doorashadii madaxweynaha oo dhacday bishii Diseembar ee 2019 uuna ku guuleystay madaxweyne Qays daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya war wixii dal iyo dibadda aan idinkaga hanay wararkeena maanta ee Boundless Media waxaa idin akhrinay ودين سوسراني وعبد نجيب عبد الله نجيب أخيار تان ورركنا دم بدي بقول كل ميدان واحد ذي كجت جالس في أمان الله.